waxaa bartamihii bishii hore ee Sebtembar ka dhacay deegaanka loo dalxiis tago ee Kiau Village shil isugu jiray dil iyo afduub kadib markii lamaane ka soo jeeda dalka Britain ninkiina la dilay xaaskiina loo afduubtay dhanka dalka Soomaaliya lamaanahan oo lagu kala magacaabi jiray David iyo Judith Tabut Mr David oo ayay dablaydu toogteen kadib markii sida la sheegay uu ku dhaga adeegay halka haweenaydiina ay ula talaabeen dhanka xuduud gudaha dalka Soomaaliya oo la galeen sida la sheegay dhulka ay ka tirso xarakada al-shabaab 3 toddobaad kadib ayaa waxaa dhacday dhacdo kale oo tan aan aad uga fogeyn kadib markii magaalada Lamu oo iyaduna ah goobaha dalxiiska ee dalkan Kenya laga afduubtay 65 jir haweeney ah oo qabta xanuunka kansarka isla markaana u dhalatay dalka Faransiiska haweeneydan bukaanka ahayd ayaa lagu magacaabi jiray Maria Didao waxayna goor dambe oo bishan ah ku geeriyootay gudaha dalka Soomaaliya kadib markii sida la sheegay ay dawadii ka dhamaatay waxaana warka dhimashadeeda shaaciyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska 19 bishan Oktoobar dhimashada haweeneydan ayaa waxaa u sii xaqiijiyay dawladda Faransiiska qofkii dhexdhexaadinayay ayaga iyo afduubayaasha sida lagu sheegay hadal qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Faransiiska ee Kenya iyo waliba wasaaradda amuraha dibadda 13 Oktoobar ayaa mar kale waxaa dhacay afduub kale oo markaas ahaa kii gilgilay guud ahaan dalka Kenya iyo waliba qaar ka tirsan dalalka reer galbeedka xerada qaxoontiga ee Dadaab meesha lagu magacaabo Ifatu oo xero uun la yag yeelay intii macluush ku habsatay dalka Soomaaliya bilihii u dhaxeeyay June iyo July ayaa waxaa laga watay laba shaqaale ajaanib ah oo u shaqeynayay hay'adda MSF Spain oo ah hay'adaha ka howlgala xeryaha qaxoontiga ee waqooyi bari Kenya isla markaana ahaa shaqaale u dhashay dalkaas Isbaanishka 14 isla bishan aynu ku jirno ayaa waxaa shir jira si wada jir ah u qabtay wasiirka amniga qaranka Kenya Professor George Saituti wasiirka difaaca Yusuf Haji iyo afhayeenka dawladda Kenya Alfred Mutua waxayna shirkoodaas jirayd ka dhawaaqeen in afduubyadan ay si rasmi ah uga dambeeyaan xarakada shabaab isla markaana ay qaadayaan talaabooyin ay ku xaqiijinayaan ammaanka dalka Kenya iyo waliba ajaanibta dalxiisayaasha iyo kuwa kale ee gargaarka Professor Saituti ayaa sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee Kenya wajahdo khatar intaas leeg isla markaana ay ku khasban yihiin inay qaadaan jawaab celin waafi ah wixii ka dambeeyay dhacdooyinkaas ayay Kenya ku daabashay xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto ciidamo lixaad leh kuwaas oo markii hore saldhigtay magaalada Liboya Kenya halkaas oo ay si tartiib ah uga sii gudbeen Doobley oo ah magaalo dhanka Soomaaliya ku taala 17 bishan aynu ku jirno ayaa wax kasta kala cadaadeen wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ku jiraan gudaha dalka Soomaaliya wuxuuna inta raaciyay in aysan Soomaaliya dagaal ku qaadin dawladda Soomaaliyeedna ay tahay tii lagu dhisay dalkooda oo ay u arkaan ilmahooda laakiin ay laga maarmaan tahay ayuu yiri inay al-shabaab iska dhiciyaan 19 bishan ayaa wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula iyo wasiirka gaashaandhigga Yusuf Haji ayaa gaaray magaalada Muqdisho waxayna halkaas ku saxeexeen heshiis loogu magacdaray iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya oo ka koobnaa 6 qodob una dhignaa sidan in si wada jir ah loo sii wado howlgallada nabadda ee loogu saldhigayo dalka Soomaaliya laguna burburinayo canaasiirta al-shabaab ee qayb ka yihiin argixisada burcadbadeeda afduubayaasha dalbada lacagaha madax furashada ah iyo dambiilayaasha caalamiga ah in la iska kaashado howlgallada amniga iyo militariga isdhaafsiga macluumaadka si loo sameeyo howlgallo kahortagis ah iyo in la raad raaco canaasiirta hubaysan ee weli ku hanjabaya weeraraysana labada dal iyadoo arrimahaas laga ambaqaadaya ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen in la cusboonaysiiyo qaab wadaag lagu damaanad qaadayo xoojinta iskaashiga iyo iskudubaridka dhinacyo badan xaqiijinta ballanqaadyada iyadoo laga shaqeynayo sidii beesha caalamka loogu boorin lahaa inay il xariis ah ku eegto go'aamadii horey uga soo baxay ururka IGAD AU iyo ay ku salaysnaa taageerada howlaha nabadda Soomaaliya in la dedejiyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dhinac ee la xiriira in la fududeeyo iskaashiga ka dhaxeeya bulshooyinka ku nool xuduudda dheer ee labada dal ay wadaagaan gaar ahaan waxyaabaha ahmiyadda leh in la iska kaashado isdhaafsiga macluumaadka la xiriira si loola dagaalamo faldambiyeedka ka dhaca xuduudda labada dal la iska tallaabo in horey loo sii ambaqaado wada shaqayn la leeyahay beesha caalamka si loo dhaqan geliyo si hubaal ah howlgalka lagu taageerayo nabadda iyo gargaarka aadanimo ee Soomaaliya xaqiijinta iyo adkeynta ilaalinta madax bannaanida iyo nabadda gobolka ee labada dal si looga hortago falalka khatarta leh ee ka imaanaya gudaha iyo dibadda intaba qodobadan waxa uu kala saxeexay labada dawladood wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xuseen Carab Ciise iyo dhigiisa Kenya Yusuf Haji howlgalkan ay Kenya ku gashay Soomaaliya ayaa loogu magacdaray difaac dalkaaga taasoo ah halku dhega ay ku howlgalayeen militariga Kenya intii u dhaxaysay 20 bishan iyo 21 isla bishan ayay Kenya bilowday inay ku siqaan deegaano dhowr ah oo ay ka mid tahay Taaba iyo Qooqaani oo dhamaantood ah gudaha dalka Soomaaliya waxayna diyaaradaha dagaalka ee Kenya duqeeyeen dhowr goobood oo ay sheegeen inay ku laayeen dagaalyahano al-shabaab ah
xarakada al-shabaab ayaa dhankeeda sheegtay inay dejisay khidad ay adhaxda ku jabinayso ciidamada Kenya sida uu ku hanjabay afayeenka dhanka howlgada ee al-shabaab Cabdicasiis Abu Muscab waxayna wacad ku mareen inaysan guul kala caraabi doonin Soomaaliya 23 bishan ayaa diyaaradaha dagaalka ee la rumaysan yahay in Kenya leedahay duqeeyeen deegaano dhowr ah iyo dhowr goobood oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo sida dekada saldhigga dhexe iyo meelo kale oo bartilmaameed ah 24 bishan ayaa shir jaraa'id iyo kulan ballaaran oo isugu yimaadeen xubnaha ka tirsan baarlamaanka Kenya isla markaana kuwa Soomaalida ah ayuu ka sheegay halka wasiirka gaashaandhigga ee Kenya Yuusuf Xaaji in Kenya dulqaadkii ka dhamaaday isla markaana wuxuu ku tilmaamay in Kenya tahay dalka ugu dulqaadka badan Afrika sidaas daraadeedna ay hadda ay ku jiraan waxa ugu yeeray difaacu nafsi afisla 24 bishan ayuu madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay degmada Dayniile halkaas ka cadeeyay inaysan dawladda Soomaaliyeed raalli ka ahayn faragelinta Kenya wuxuuna sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo dawladduba ay diidan yihiin soo galitaanka askarta Kenya si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa waxay ku noqonaysaa cabsi la soo diristay Soomaalida ku dhaqan deegaanka Islii kuwaas oo aad iyo aad uga cabsi qaba inay saameyn ku yeelato howlgallada dawladda Kenya ka bilowday dalka Soomaaliya Soomaalida ku dhaqan oo aad iyo aad uga ganacsada deegaanka Islii ayaa hadda waxay goor hore ku xarooban guryahooda ayagoo ka cabsi qaba inay saamayso howlgallada ay bilaabeen ciidamada dawladda Kenya ee kuwa booliiska iyo kuwa dhacada isugu jira Salmaan Xaashi Dheere Somali Sat Nairobi